haweeneydan oo ah xaaska Mahad Karatay muddo dheerna ka tirsanay dagaalyahanada al-shabaab waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka shacabka ah ee dib u xareynta gobolka Hiiraan waxaana lagu qabtay dagaalkii qaraaraa ee shalay 15 saacadood ka socday deegaanka Jimbucow ee hoostaga degmada Buulaburdi ee gobolka Hiiraan. laga soo deynaa waa laga jari doonaa marka energy ay dhamaan warkaas laga jarayaan sir waa ka jaraysiin waxa laga jarayaa hadalka dawladda hala dilo madaxweynaha hala dilo ra'iisul wasaaraha hala dilo baarlamaanka hala dilo wasaarada hala dilo hadaan dhaho hayga goynina halaasan ku baaqaa kadib markii gacanta lagu soo dhigay haweeneydan waxa ay bixisay waraysi la yaab leh oo shacabka Soomaaliyeed la yaab iyo argagax ku noqday waxa ayna sheegtay inay muddo dheer ka tirsanay dagaalyahanada kooxda al-shabaab waxaan halkaan idin kula wadaagi doonaa qaybo kamid ah waraysiga ay bixisay inaga oo markaasi dul istaagi doona haweeneydan mayalka adag qaabka iyo goorta ay soo gashay dagaalyahanada ururka al-shabaab dagaalkii qaraaraa ee shalay ka dhacay deegaanka Jimbucow ee hoostaga degmada Buulaburdi ee gobolka Hiiraan wuxuu ahaa midkii ugu adkaa ee waayahanba ka dhaca guud ahaanba koonfurta Soomaaliya waxa uu socday 14 saacadood waxaana go'doon la galiyay ku dhawaad 400 oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ayaa markii go'doon kala galiyay waxay u baxsadeen dhanka webiga jiinkiisa iyagoo webiga ku baaba'ay kuna qarqoomay halka kuwii kalena ay ku jiraan buuraha waxaana la sheegay in maanta duqeymo la eegan doono haddii aysan isa soo dhiibin haddaba intaan u gudin muuqaalka oo dhammaystiran dhammaantiin sii share gareeya like-tu waa inoo muhiim YouTube-kana subscribe saarta gambaleelkana furta ku mahadsanidin waatan haweeneydan oo la sheegay inuu qabay Mahad Karatay oo bixinaysa waraysi la yaab leh waxay ka aaminsan tahay shacabka Soomaaliyeed dawladda federaalka ah hadaan ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laga gudbinayo dacwada laga soo deynaa waa laga jari doonaa marka energy ay dhamaan warkaas laga jarayaan sir waa ka jaraysiin waxa laga jarayaa hadalka dawladda hala dilo madaxweynaha hala dilo ra'iisul wasaaraha hala dilo baarlamaanka hala dilo wasaarada hala dilo hadaan dhaho hayga goynina halaasan ku baaqaa ummadda Soomaaliyeed anu ma wada gaalaysiinay laakiin dawladda maanta kaamirada ay duubayso Soomaali isku sheega waxa qiray inayna muslimiin ahayn laana kitaabka Ilaahay kuma xukumaan qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay ka mar qaataan inay ugu xukumaan sida daraadeed ma aaminsani inay yihiin dad muslimiin Allah Soomaaliya gaala joogto meeshan jooga maanta anu dadka jilcu waalday anu aqoon uma leh Ilaahay baa iga cimil waa sida asxaabtiina qaar kamid ka xogeeya dadka jooga waxaan ka aaminsanahay gaala inay yihiin dawladda bisan baa ula jeedaa dawladda inay gaalata iyo wixii hoostaga la halmaalo la shaqeeyo gaala waa lagu jihaada kufaarta wadan kasta ka timaado murtadiinta lagu jihaada alal-uusta lagu jihaada mid kasta bi'asta lagu jihaada saas aaminsanahay meeqa sana jeclaadide kooxda mahad aad u shaqeynayso waxaad wacyigelin u sameynaysaa dhalinyarada da'da yar oo aad tashkiilinaysa ilaa sanad ku soo beertay su'aasha soo kala ka jawaabi karaa 7 sano ayaad hawsha ku dhaafay maxaad doonaysaa intaas diinaan baranayay dadna waa barayska ma badnayn intaan dadka bara laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala mararka uu karsiyo waa bari jira dadka diinta dilkaas waxa soo dhan wada baabi'iyo maxaad markaa wadanka u haysan ee gobolka maxaa ka aaminsantaa wadanka waxa rabnaa kitaabka Ilaahay sunnada in lagu dhaqo hana lagu dhaqo daaqoodka dastuurka hana laga dhaafay qodobada degsan kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo muslimiin baan nahay hana lagu xukumo kitaabkeena diin lagu xukumo way mata Ilaahay wuxuu faqtalo war madaxweyne farmaajo aan lagu xukumo door waxana la xukumo diin islaamka lagu xukumo hatta laakiin diin islaamka lagu xukumaynin أنا مبدئيا أنا كلاهنا ديار مني بس أنا قلت دين أمنا قواعس جيت تقال مركي شو أسكت على عصي هو الماء دي مساكين المسلمين أو دم بكم جني فكر كي قال لقمة دلوقتي إلا كفار ما هن أنا كبعض من الصومالية مسلمة دنا أنا سكاهم سنة هو كلام كاهم سنة مرتب دولنا تاجر دولنا ماركين دولنا تاجر ماركين أنا دولة الإسلام كان تاجيرة الإسلام كقتلس حكم الإسلام وشريعة إسلامية حكم الإسلام ما يشاف شوية دولة سعودية دولة فدرال كاليرة مقعه قديلي ها أمانة أسقنا أنا ويجري دولة فدرال قيار إلا بها اللي يقول شيء أنا والشاهد ميه وح قيار اللي هو يا maxaan karba fasiraad inta arkaa ugu aad dawladda ridada daana aaminsaneyn ma fikir dagaal ma la igu soo qabtay dawladda ridada daana aaminsaneyn caqiidadeeda ya may iimaankaas wali ma helin ilaahay baan ka rajeynaa ilaahay inuu arsaxo
laakiin waa ku tala jirtay inaad diyaariso maanta kale aad u habboon tahay inaan isku qarxiyo waana haysan qaraxa marka waxa ku cadeynaysaa maxaa ku gaala nacayb baa iga batay gaalada aad u necba iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka Ilaahay ku xukuntamay yaa ku daliiliyay in dadka isku qarxinaysaan ay wada gaala yihiin yaa cadeyn uga haysataa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkiisa aan uga haystaan ku yiri كلمة لا إله إلا الله معناها إضافة برتو دحقش كتاب التوحيد أو قرآن كتفسير كيسو والتوحيد آبال عتيد واحد أوغانا يسا حكمك أوليها قفك مسلم كنفتيس ينفتك سهر جيدو واحد اللي تقول واقعنا محاكو بينين كرتان مركا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم آيات دحيسا محاد عدينا أو عد أوغا جنبانيسان أوغا اللي حق وحا أوغا جنبانا وحي تاي من مؤمن ما بدل يابانو مؤمنين ما عن دولة الردة هدان كباق دولة الردة إلا دلو ماشي لو أركا لكن